بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب إلهي وقتيدي هبركيو ميلك سأدوذات كجوكتان قود أهانا إلهي أنا وضع حفظيو كليب كانوا أجيدان أما فيديوهان أن إذن صور لدي وسحر للسمية إلهي نفذديي ساحرك إن قعنت لقول بيقو إسلام كان أوشيغو أوشي أوقبتي سحر كأها إماشي أوبيقي وحا قعنت كلكتي هيئة ليراهدو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مملكة سعودية كبسا أو هوشودي أيتهاي وحا مسلمين تنبيبيو دبقل كود waxyaabaha ay ku mashquulsan waxa kamid ah ragga wax sixra dabagalkooda waa dhulkii barakaysna oo inta sida loo raadinayo wax daraagis ah wax dhib ah wax dhibayo haddana ay sidaas sameynayaan wax saaxir ah bal saaxir ma liidaan anaga wadankeeni ka waran bal yaana ilaalinayo oo daba joogo أصحابتي بوي رجع واحد سحرة علماء بقولنا قانا قاركود مساجدها جوجو دكسية معلمين كع حسبنا الله أحبابي في الله بالفيرية نبكى أنت لقيك أوجي سنة يقف كان ساحر كع يقفك وحلا سحري قد كاسد وجدان يا وحلا لحدقي سحر قنتي سأنتوا لقيها بالفير قد كأنت لقضي كو سحر كماشة لا دحدقي بالفيري جزع عانها نيدها أيا لا دحدقي أنت بع لوجود الدوبي سحر كي وحى لا دحدقي ملاي أفكيس ملاي مضح أنت لقيت يا أفكيس لا دحدقي والنوع شقوين ككمل معناها محوية لأن جزع قرمو بولولي دونا وبابي دونا هدو بابو بعهاس بيه وحبة كمان نبي يقول لك عيد وحبة كمان نبيس معناها محاور إن قفك مرنبة وسنسوت توسي وحمرك لو قلت لك اللي قلت سمي إن السحر كجيري إنو يهي أما والي إنو يهي أم إن لقهر استاقي أدو يدي سيو نبا إنو نقضه قبل إنو يقول ستو ويلك إنو يقول ستو هدي يقول كجران سي لقوك لقين لها haddaan la kala geynaynin ubad inaysan kala helin gabadhii guriga inaysan fadhinin odigii iyad iyo odaygeedii heshiisba aysan noqonin 24 saac wareega ay ku jirto guryaha reeraha dadka ay fadhido ama odaygiiyo shaqaba laga xirxiro awlaadiisa iyo xaaskiisa uusan u tashanayn warba u haynin duurka la iska geliyo dad isjecel walaalo ah la kala geeyo qof iska shaqaysanayo shaqadiisa lagu curiyaamay laga hor istaago iyo wax ka sii badan oo ka sii badan oo ka sii badan hawshaas ayay hayaan dad qalbigooda sida dugaaga oo kala u shaqeeyo ayuu la xabaa ma qofkan naxariisa qalbigiisa ku jirta waxaan sameeyay waa qof alla ka furtay marka lagu leeyahay saaxirka kaafir weeyaan arrin sahlan ma aha سبحان الله محايلي هوشان جنيا لو أديك سدا لازم ساحر كمركو جنيا أديك سدا كافر ويان سببته الله كو كفرينيو إلهي كتاب كيس قرآن كو مقدس كأه ونكدور نميل هوسيسا ميل سرعان سارنا أيو مسخوش لقليا سوء إهانيو وهدو صنعها بكو حيرانين sida kabaha oo kale uusan u samaysanin baalasha quraanka intuu soo gogoyo ama uusan dhigin meesha lagu saxrado ama dhulkiiba intaan uu raali gelinayo shaytaanka hawsha inuu u qabto uu rabo maxaa yeelay hawsha way kala culus tahay hadba qofka intuu ka gaalnimo badan yahay uu alla ka sii furanayo in la ego shaytaanka hawsha uu u qabanaya ama shaytaanada ugu qaalisan ay kugu imaanayaan hawsha ay kugu qabanayaan dumarka caadadooda ayaa quraanka lagu qorayaa nijaasta ah si hawsha loo fuliyo
saaxirka wuxuu noqonayaa midaan janaababa ka qubaysanin markaasuu masjidka ilaahay soo galayaa laga yaaba imaam inuuba ka yahayba masjidka isigoo janaabo qaboon daahir ahayn dadkuu u muujinayaa inuu weysaysanayo dharkiisa nadiif uu yahay laakiin uu yahay kaafir mulxid ah ilaahay ihaanaystay diinkiisa hooyada ama gabadha ama ninka u aadaya dadka rabo walaalahoodii dadkooda inay curyaamiyaan bal ka waran badanana sixirka waxa sameeya qaraabada dhexdoodii waa dadka asxaabta isu ah waa dadka iska soo horjeeda ganacsiga iskula jiro dad kala fog ma aha waa dad xogtooda iska warahayo ayuul axbaab allah midinku dhaarshay bal dadkaa liibaan intay ka sugayaan oo xaalkooda sidaa uu yahay subxaan allah miyuusan dil istaahilin ninkaa saaxirka ah sacuudiga qorshaha u degsan wuxuu yahay ama qaanuunka u degsan qofkii sixirka lagu qabto noocan oo kale in la dilo waa xad islaamka uu gooyey saaxirka in la dilo hadduu toobad keeno rabbigiisii asiga waa laakiin xadkii dadkii uu ka galay waa in laga gooyaa alla toobad waa aqbalaya qofka intaan la qabanin hadduu alla u toobad keeno inkastoo alla uusan u cafinaynin intuu dad dilay intuu dad sariir saaray intuu dad curyaamiyey uusan alla u cafinaynin ilaah kuma cafinayo xuquuq dad aad ka gashay bal ma sahlan yahay saaxir warkiisa lagu gartay saaxiro gabadha wax sixiraysooy war ilaahay maad ka cabsatay dumarkaa wax sixri oo qoftaa ganacsiga kuula jirto qoftaan walaashaada guurkeedii u hagaagay odaygeedii ciyaalkoodii isku toosanoo isjecel kala dhexgalkooda kala daadintoodii maad ka hawshaa maad ka istaagtay qoftaan waa la dhahayso ninkayga guriga inuu ii joogaan raba meel kale iga aadin maad ka joogtid intaad xumaan u samayso caloosha barariso lugaha aad ka fariisiso